السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada casharkeena ugu horeeyay PowerPoint waxaan ku eegi doonaa versionska uu leeyahay PowerPoint versions baan ku eegi doonaa. marka hore waxaad sameynaysaa si aad u eegtid versionka aad isticmaalaysid ee PowerPoint-ga. waxaad tagaysaa file markaad tagto accounts baa ku dhufanaysaa. accounts markaa ku dhufato halkaan waxaa ka fiirinaysaa midka aad isticmaalayso. Microsoft Office Professional Plus 2019 ma isticmaalayaan marka aad midka isticmaalayso halka ku soo qodaya hada 2010 isticmaalaysa 2016 isticmaalaysa 19 midka rabtid. marka halkaas markaad ka soo eegtid waxaad ogtahay hadeer waxaad midka isticmaalayso ama PowerPoint-ga aad nooc u yahay isticmaalayso. marka inta sameeyso waxaad sameyn kartaa PowerPoint-ska waxyaalaha yaryar bay kala duwan yihiin 2010 iyo 2013 16 marka waxyaalaha ku kala duwan yihiin marna inaan eegno intaan version ba hada ugu dambeysay adiga XP wixii ka horeeyay mahane 2007 2010 2013 2016 2019 version ugu dambeeyay 2019 buu soo baxay. marka waxyaalaha ku kala duwan yihiin waxa kamid ah maxaa ku cusub 2013 oo 2010 lahayn smart gadgets maxaa la dhahaa. waxaan sameyn karnaa waxaan ku soo darsanaynaa hada hal shay smart gadgets waxa la dhahaa. marka had saas u qaadno aan rabnaa meesha dhigno shape-ka waxaad aragtaa calaamado yaryar oo ku saxay meesha aad dhigaysid iyo soo la siman yahay iyo waxyaalahaas oo dhan ku caawinaya. marka smart gadgets kuwaas la dhahaa. waxa kale lagu soo kordhiyay oo 2010 lahayn oo 2013 aad ka helaysaa comments hadda waxa ku dhufanaysaa insert marka new comment ama comments halkaan aad ka helaysaa halkaas aad ka helaysaa. marka commentskaas 2010 ma laakiin 2013 baa lagu soo daray. sidoo kale custom color inaad samaysatid iyo eyedropper tool inaad samaysatid. hadda sidoo kale shape noogu soo tuur si aan u fiirino aan tusaalaha kaasna idin tuso. marka hadda shape-ka soo degsatid fill-ka marka saaraysid more colors marka dhaxdid color waxa samaysan kartaa adiga ma aad oo maarta custom aad adigu abuuraysid markaas baa samaysan kartaa. sidoo kale eyedropper tool baa isticmaali kartaa. eyedropper tool waa kan halkaas aan ku dhufanayna waa kaas sida u jeedaan kaasina midabkaasina la yeelatay midabka kan uu lahaa buu nala yeeshay. waxa kale oo sameyn karnaa waxyaalaha kale lagu soo kordhiyay waxa kamid ah 2013 iyo 2010 intaas ku kala duwan inta badan waxyaalo badan ma jiraan. 2016 muxuu kaga duwan yahay 2013 wuxuu kaga duwan yahay tell me about waxaad ka raadin kartaa wax kasta aad meesha ku jiraan aad aqoonin aleen baad ku dhufanaynaa waa kan aleen objectives marka ku dhufatid halkaan ku soo taxaya wax walba halkaas ku soo taxaya. waxa kale oo sameyn kartaa comments baa ku qori kartaa wakaas insert comment iyo comments iyo waxyaalaha soo dhan maartay halkaas aad gashay wax aad fahmi weydo meesha ku jira halkaas aad ku dhufanaysaa. margin shapes baa sidoo kale lagu soo daray. margin shapes waxaad ka helaysaa marka hore waxa ku soo daraynaa shape baan ku soo daraynaa. shape-ka marka ku soo darsano shape-ka noo kala koobiyay noo door labadaba select noo sameey kadib waxa ku dhufanaysaa shape-ka marka format shape drawing tools format marka dhahdid kadib halkaas waxaad ka helaysaa merge shapes ina midaysid ina labadooda ina kala jartid fragment adigu shanta nooc baad sameyn kartaa. mid kasto kamid waan u tagi doonaa oo aan isticmaali doonaa insha Allah sida loo isticmaalo waan arki doonaa. laakiin merge shapes shantaas ku samaysan yahay marka waxa lagu soo daray 2013 hada isticmaalaysa ma lahan merge shapes marka waa kaas. sidoo kale 2019 maxaa ku cusub text highlighter baa ku cusub. text highlighter waxaad isticmaali kartaa saasad textiga u dooranaysaa kadib home ka tagaysaa home marka tagtid halkaas aad ku dhufanaysaa textiga highlight baa saaranaysaa sida word-ka oo kale. word-ka hada waa lahaa laakiin hada PowerPoint 2019 baa lagu ku cusbaa marka waxaad sameyn kartaa text highlighter-ka inaad isticmaashid. sidoo kale 2019 waxa kale lagu soo daray morph transition la dhahayo. transitionska marka tagtid halkaas morph baad ka helaysaa. morphigaas waa ku cusub yahay 2019 buu ku cusub yahay laakiin 2016 kuma jiro. marka waxyaalaha ku cusub intaas ugu muhiimsan waxyaalo kale oo yaryar waa jiraan laakiin it's not important.
marka intaasaan maanta kusoo eegaynaa versionskiisa oo leeyahay PowerPoint iyo waxyaalaha ku kala duwan yihiin. marka casharka soo socda waxaan ku eegi doonaa hordhac ku saabsan transitions iyo inserts iyo slideska waxyaalaha u baahan tahay oo dhan baan sharxi doonaa insha Allah. la soo casharkeena casharka la xiga waa mahadsantihiin.